salaamullaahi calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo halkani waa Tulita Channel kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ee taagan waqti xaadirkan suuqa Man United oo dhinacyo badan aan u kala dhigdhigi doono iyo midka Chelsea waxaan ka marnaan doonin mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi oo dib u soo laba kacleeyay iyo sirta ka caawin doonta inuu ku guuleysto abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan dunidan markii sideedaad iyo Liverpool oo tactica ciyaareedkeeda macallin Jurgen Klopp uu ka badali doono wax badan talow muxuu samayn doonaa macallimkan barnaamijkan ayaad ku ogaan doontaa wararka iyo warar kale oo aad u xiiso badan balse marka hore ha iloobin inaad like saarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhowow qalbi furan mahadsanid mucjisadii reer Argentina ee Lionel Messi dib ayuu u soo laba kacleeyay wuxuuna ka mid yahay ciyaartooyda bandhiga ugu wanaagsan ka sameynaya garoomada xilli ciyaareedkan bilowga ah isagoo kalinta labaad kaga jiraba xidigaha ilaa iyo haatan ugu fiican saaxadda kubadda cagta Yurub sida ay muujiyeen xogaha diiwaan ka galay Messi markii sideedaad ayuu raadinayaa ku guuleysiga abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan adduunkan ee Ballon d'Or waxaana farsamooyinkiisii dabiiciga ahaa waqti xaadirkan uu ku soo bandhigayaa fagaarayaasha kubadda cagta waxaana durbaba uu dhaliyay kala bargoolashi uu shabaqa tusiyay kal ciyaareedkii hore 35 jirkan ayaana caawiya ka noqday goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa uu horyaalka Ligue 1 Faransa toddobaadkan uu ka dhaliyay Kylian Mbappé isagoo badashay booskii uu ka ciyaarayay xilli ciyaareedkii hore waxaana uu u soo guuray qadka dhexe halkaasi uu ka sameynayaba hal abuurkii lagu yaqinay macallimkii macallimiinta xog ururin ay samaysayna Who Scored oo lagu eegaba horyaalada waaweyn oo dhan ayuu Lionel Messi waqti xaadirkan wuxuu kaga jiraa kalinta labaad kaliyana laacibka ka horeeya wuxuu noqonayaa midka ay isku kooxda yihiin ee Neymar iyadoo oo ay soo raacayaan Llorente, Jamal, Kylian Mbappé iyo Joshua Kimmich kadib markii Liverpool ay ku guuldareysatay inay soo hoyso wax guul ah saddexdeedii kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska Jurgen Klopp wuxuu ka fiirsanayaa waqti xaadirkan in shax lama filaan ah uu kagala hortagaba kooxda Bournemouth oo ay ku martigelin doonaan qalcadooda Anfield Liverpool waa ay ogsoon tahay in horeyba dhibca ay ugu soo lumisay Fulham oo ka soo dallacday horyaalka heerka labaad sidaa darteedna ma dhayalsan karaan kooxda uu hogaamiyo tababare Scott Parker oo weerarkoodana uu aad u wacan yahay Klopp waxaa la filayaa inuu ku ciyaari doono shax ka kooban 4-2-3-1 isla markaana uu ka soo muuqan doono ciyaaryahan cusub afka hore inkastoo booskiisa uu yahay waqti xaadirkan qadka dhexe balse awoodiisa weerar wuxuu ku muujiyay kulankii Liverpool guuldarada ay kala soo laabatay Old Trafford kooxda Manchester United laacibka da'ada yar ee Fabio Carvalho ayaa la sheegay in Klopp uu ka fiirsanayo in weerarka uu kula soo bilaabo ciyaartooyda kala noqonaya Roberto Firmino, Mohamed Salah iyo Luis Diaz isla markaana qadka dhexe ay noqdaan laba ciyaartooy oo kaliya si kooxdiisa ay awood ugu yeelato in kulankaasi ay dhalisaba goolal badan Klopp waa mid ka mid ah macallimiinta ugu khibradda fiican qaaradda Yurub markan iyo wixii ka dambeeyana waxaa laga fishaa tactica ciyaareed cusub uu kula wareego taliska kubadda cagta Yurub iyo midda England ugu dambeyntiina maamulka xagga suuqa ee Man United waxay diyaarinayaan dalab gaaraya 80 milyan oo gani oo ay hordhigi doonaan kooxda Ajax Amsterdam si ay ku helaan laacibkooda Anthony 22 jirkan qayb kama ahayn ciyaartii ugu dambeysay ee Ajax ay ciyaartayba horyaalka Holland Axadii iyadoo maamulaha kooxda ee Alvarez uu sheegay in weeraryahanka dhinac kasteetaba uu cadeeyay in
maskax ahaan uu taam u ahayn u ciyaarista kooxda Ajax Amsterdam. waxaana uu yidhi wuxuu ii sheegay inuu dareemayo in boqolkiiba boqol maskax ahaan uu taam ugu ahayn ciyaaridda kulankan, waana sababtii aan kaga soo tagnay. waqti xaadirkan iyo wixii ka dambeeya kooxda Ajax iyadana waxay dunidan ka raadinaysaa beddelka Anthony, waxaana bartilmaameed ay ka dhigteen laacibka kooxda Chelsea ee Hakim Ziyech, taayoo ka dhigan in Anthony markan iyo wixii ka dambeeyaba si weyn loogu siyaalaynayo u soo weecashada xagga iyo gagada caanka ah ee Old Trafford. wararka United intaasi kuma eka oo sidoo kale goolhayaha kooxda Frankfurt ee Kevin Trapp ayaa lagu soo waramayaa inay u soo bandhigeen heshiis mushaar ahaan toddobaadkii ugu qaadan doono 180,000 oo gani. kooxda laguna neesoshiyeedinta cascas ayaana u ogolaatay Dean Henderson in amaah uu ugu biiro kooxda Nottingham Forest, taayoo ka dhigan in waqti xaadirkan haddii digeeya la waayo keliya ay ku xisaabtamayaan Tom Heaton, mana ahan goolhaya laysku halayn karo. waa sababta waqti xaadirkan dunidan ay ugu raadinayso United goolhayayaal kale oo aad u cajaa'ib badan. reer Arsenal dhankoodana kaliya waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa saxiixii riyada midkii taariikhda ay u jibiyeen ee Nicolas Pepe, ileen ma noqon laacib wax badan ku soo kordhiya kooxda caanka ah ee ka dhisan waqooyiga London. sida oo ay tahayna waqti xaadirkan waxay heleen ciyaartoy dhinac kasteetaba ka dhammaystiran oo la filayo in kooxda ay la gaari doonaan guulo waaweyn. waxaana qayb ka noqonaya Saka oo lagu daray Gabriel Martinelli ilaa iyo laacibka dhaafay ee goolmagafaha ah Gabriel Jesus. dhan kastaba waqti xaadirkan Arsenal waa ay ka dhammaystiran tahay, sida oo ay tahayna waxa uu doonayaa macallin Mikel Arteta in kooxda loogu soo kordhiyo halkoo weerariyaan oo kale, waxaana bartilmaameed u noqonaya laacibka khatarta badan ee ka tirsan kooxda Wolves Pedro Neto. sidoo kale Arsenal inta uu xilmin suuqa xagaygan qorshaheeda waxa uu noqonayaa in gacanta ay ku soo dhigto halkoo qadhexe, waxaana bartilmaameed u ah Yuri Tielemans ka oo lagu heli karo waqti xaadirkan 20 milyan. Juve iyadana waxay xiisaynaysaa ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Paris Saint-Germain Leandro Brady, sida laga soo xigtay wariyaha caanka ah ee Gianluca Di Marzio. si lamida Piangerere kooxaha kale ee horyaalka Serie A ka dhisan ee doonaya laacibkan waxaa qayb ka noqonaysa Roma. Jose Mourinho ayaana doonaya inuu u adeegsado qadkiisa dhexe maadaama uu dhaawac ka noqday Wijnaldum. Chelsea iyadana waxay waqti badan ku bixinaysaa sidii ay u xoojin lahayd awoodeeda weerarka, ilan waa uu ku guuldaraystay Tuchel si waliba uu u shashaabo ciyaartoydiisa inuu sare u soo qaado. waana sababta waqti xaadirkan bartilmaameed weyn ay ugu dhiganayaan laacibka kooxda Everton ee Anthony Gordon. sida laga soo xigtayna jariidada Daily Mail, Everton ayaa Chelsea u sheegtay haddii ayba doonayso laacibkaas in heshiiska qayb ay ka noqdaan Gallagher iyo waliba Armando Baroka. dhinaca kale Gordon ayaa maamulka Everton isagana si cad ugu sheegay inuu doonayo ka mid noqoshada kooxda Chelsea inta lagu guda jiro suuqa xagaygan si uu ugu ciyaaro tartanka ugu caalamisan qaaradda Yurub ee Champions League. kooxda kubadda cagta ee Newcastle United iyadana waxay heshiis la gaadhay weerariyaan raadintiisa ay ku daaleen naadiyada ugu waaweyn horyaalka Premier League ilaa iyo ugu dambeyntii ay ka soo bixisay lacag taariikhda gashay, ilaan waa laacibkii ugu qaalisanaa ee gacanta ay ku soo dhigto waqti xaadirkan Newcastle United. kooxda uu Sacuudiga lacagaha badan ku maalgelinayo ee Newcastle United oo axadii barbardhac 3-3 la gashay Man City ayaa haatan waxay ku faanaysaa inay haysataba wiil ay ku xoojin karto safkeeda weerarka. Newcastle ayaana shaacisay in heshiis ay la gaadhay weeraryahanka reer Sweden ee Alexander Isak oo 63 milyan oo gani ay kaga iibsadeen Real Sociedad. labada koox si buuxda ayay wada xaajoodka iyo lacagtaba iskula meeldhigeen, iyadoo laacibkan hadda uu u soo xirxiranayo inuu u soo duulaba waddanka UK si tijaabada caafimaad ugu maro kooxdiisa cusub ee Newcastle United. tababare Erik ten Hag isna wuxuu raadinayaa weeraryahan cusub uu ku soo kordhiyo safkiisa, waxaana diiradiisa soo galay laacibka ay isku waddanka yihiin ee Memphis Depay oo Man United u soo ciyaaray intii u dhaxaysay 2015 ilaa iyo
2017 laakiin wuxuu ku jiraa liiska xidigaha ay ku khasartay United. 28 jirkan 31 milyan oo gani ayay ku soo iibsatay United sanadii 2015 waxaana waqtigaasi calmaday Louis van Gaal oo filanayay in wax badan uu ku soo kordhin doono safkiisa. hase yeeshee 53 kulan uu u ciyaaray United waxa uu dhaliyay kaliya 7 gool. sidaasi oo ay tahay Erik ten Hag ayaa la soo sheegay inuu qorsheynayo in dalab 8 milyan oo gani uu ka gudbiyo laacibka reer Netherland oo dulsaar ku ah kooxda ka dhisan magaala madaxda gobolka Catalonia ee Barcelona sida ay sheegtay jariirada caanka ah ee Marca. qaabka wajila'aanta ee Barcelona ay kula dhaqmayso xidigaha kooxdeeda muddooyinkii ugu dambeeyay waa mid cid kasteetaba ay arkayso waxaana tusaale ugu filan xaaladda Franka de Jong. waxaana haatan qaybta madow ee kooxda faahfaahin kale ka bixiyay da'yarka dhawaan ka hayamay Camp Nou Eric Boag oo ku biiray kooxda reer Mareykan ee La Galaxy. Boag ayaana dhaliil xooggan u soo jeediyay tababare Xavi Hernandez iyo weliba maamulka kooxdiisii hore. Boag si weyn ayaa looga rajo qabay bilowgii waayihiisa Camp Nou laakiin wax weliba uma dhicin sidii la filayay. waxaana uu yidhi inaan Barcelona ka heray iyadoo kooxda Los Angeles ay ku ciyaarayso way idhaawacday. nin waliba wixii damqay ayuu ka hadlay intii uu joogay gagada caanka ah ee Camp Nou. waa naga inta barnaamijkii uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirisaaq Tolman.